boqorka Ruushka Peter Kowad wuxuu ahaa boqor aad u jecel xun. Wuu ahaa ido iyo qof aan waxba fahmin. Dhammaan ficilada Peter Kowad waa kuwa doqonnimo ilaa nacasnimo. Qorayaasha oo qoray taariikhda Ruushka waxay ka digeen Peter haliyey isbeddel saameeya. Qorayaasha iibka waxay lahaayeen hawl ah inay soo saaraan nooc kale oo taariikhda ah. Waxay qoreen waxyaabo badan oo aan maquul ahayn. Tusaale ahaan, dib u habaynta taariikhda. Waxaa la aaminsan yahay in Ruushku horey u noolaa iyadoo la raacayo taariikhda abuurista adduunka. Peter Kowad ayaa joojiyey kalandarkaas. Sanadka ebedalaatiismu lahaxad ee abuurista adduunka wuxuu noqday sanadka albuyadaxmil ee dalashada siise Masiix. Taariikyahanada Ruushka iyo kuwa Sovyetka waxay leeyihiin in tani ay ahayd tallaabo weyn oo lagu jacriyeeyo Ruushka dib u daacay. Petr wuxuu sidaas ku sameeyey inuu iswaafajiyo taariikha dalalka hogaaminaya Yurub isla markaana uu abuuro meel taariikheed oo midaysan. Ku habboon in lagu dhaqmo ganacsi, soo saar, diblomaasiyad iyo waxbarasho. Waxaa la sheegay in Peter Kowad uu Ruushka ku riday heer la mid ah Yurubiyiin aad u horumarsan. Aad bay u qurux badan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxyaalaha noocaas ah oo kale waxay qori karaan oo kaliya dad aan aqoon lahayn ama khiyaano. Taasi waa taariikyahanada. Aan eegno xaqiiqooyinka rasmiga ah. Hore Yurub waxay ku nooleed kalandarka Julian. Laakiin waxaa la ogaaday in kalandarka Julian uu ahaa mid aanaad u sax ahayn. Muddada sanadka ee kalandarka Julian waa xuluburdatay kokadeer marka loo eego xaqiiqda. Inkastoo qaladka uu aad u yar yahay, haddana 180 sano gudaheed kalandarka Julian wuxuu ka dambeeyaa hal maalin. Sidaas darteed, qarnigii Osoltalaad waxaa la ansixiyey kalandarka saxda ah. Waxaa loo bixiyey magaca kalandarka Gregorianka si loogu xuso Papa Roma Gregorius. Waqtiga khariidada siyaasadeed ee Yurub waxay ahayd mid kale, laakiin waxaan magacaabi doonaa gobollada casriga ah si aad u fahanto. Sidaa uu amray madaxda kaniisadda Roomaanka, dowladaha Katoliga ee Yurub waxay u guureen jadwalka cusub ee Gregorianka. Kuwani waa Faransiiska, Talyaaniga, Isbaanishka, Boortaliiska, Bawlaan, qaybahan Jarmalka iyo Nederland. Katoliga ayaa ku dhaqaaqay nooca cusub ee taariikhda ka hor dhalashada mustaqbalka boqorka Ruushka. Sanadkii Mutusayda Musa, dalalka Protestantka ee Yurub sidoo kale waxay ka noqdeen kalandarka Julian. Waxayna qaateen kalandarka Gregorian. Gaar ahaan Jarmalka, Denmark, Norway, Sweden, Netherlands iyo Switzerland. Waxaan magacaabayaa gobollada iyadoo la raacayo juqraafiga casriga ah. Laakiin Ruushka, qofka doqon ah ee Piotr Eli wuxuu soo bandhigayaa kalandarka Yulianka oo duugoobay, kaasoo ay diideen dhammaan dalalka horumarsan ee Yurub. Doolarkan waxay u adeegeen tusaale u ah Peter I, wuxuu ku dayday wuxuuna tusaale u qaatay si uu u saameeyo isbeddelka Ruushka dib u qajaca. Taasi waxay yiraahdaan taariikyahanada. Laakiin isbeddelka kalandarka ee Peter ma abuurin meel. Kalandar oo midaysan oo ay la wadaagaan Yurubiyanka ma hagaajin xiriirka. Sababtoo ah taariikhuhu si kasta oo ay noqdaan way kala duwan yihiin. Yurub waxay ku nooleed kalandarka Gregorian, Ruushkuna wuxuu ku noolaaday kalandarka Julian. Farqiga u dhaxeeya kalandarada bilowgii qarnigii Amitadcaad wuxuu ahaa cabdar maalmood. Isbeddelka jadwalka waa hawl aad u adag. Waxaa loo baahan yahay in dib loo sameeyo tiro badan oo dukumiinti ah. Dadka oo dhan waa in lagu baro nidaamka cusub. Tani waa adag tahay, tani waa qaali, tani waa kulus. Tani waxay muddo dheer carqaladaynaysaa shaqada mashiinada bulshada. Haddii la samaynayo isbeddel jadwal, waa in la qaataa jadwalka ugu fiican, ugu shaxsan, ugu cusub. Jadwalka Gregorian. Isbeddelada waaweyn ee bulshada, sida dib u habaynta jadwalka, waxaa la diyaarinayaa waqti aad u dheer. Marka hore, waxaa si dheer looga doodayaa in isbeddelku uu mudan yahay dhibaatooyinka iyo kharashada ka dhalan doona inta lagu jiro iyo kadib dib u habaynta. Mar walba waxaa jira taageerayaal. Mar walbana waxaa jira muqaarid. Kadibna isbeddelka mustaqbalka ayaa horey loogu sheegaa dhammaan dadka si ay u diyaar garoobaan. Peter Kowad ma caawudiin in usaan ogeen in bad Yuroba ay ku nuushahay kalandarka Gregorianka cusub. Bastankeedana waxay ku diyaar garoobayaan inay u guuraan. Laakiin dib u habaynta weyn ee Ruushka ayaa dooratay kalandarka Yulianka ee duugoobay. Ruushku wuxuu kalandarada u simi karaa oo kaliya Giriiga, Bulgaariya, Romania iyo Serbiya. Ma aysan u gudbin kalandarka Gregory. Taariikhdu ma tixgelinayso dowladahan inay yihiin dalal hogaaminaya Yurub waqtigaas. Intaa waxaa dheer dulalkan waxay ahaayeen qayb ka mid ah boqortooyadii Cumar. Sanadkay banyaydmis, boqortooyada Ingiriiska ma aysan gelin kalandarka Yulianka, laakiin waxay samaysay tambartamihii qarnigii ama tonaad.
ruushku wuxuu ku soo galay kalandarka Gregorianka kaliya bilowgii qarnigii ximraad kadib kadsaankii aadka u xumaa. xaqiiqda taariikheed ee isbeddelka kalandarka ruushka ma waafaqsana sharaxaadaha taariikhyahanada. sidaas ayaa badanaa dhacda maxaa yeelay taariikhda waxa soo saaray Benlow. haddii ay tahay Piotr Duhmo oo ay weheliyaan hoggaanka boqortooyada ruushka iyo saynisyahanada ka socda akadeemiyada iyo jaamacadaha, waxay ahaayeen kuwa aan jecli lahayn. ma qiyaasi kartid dhammaan wasiirada, dhammaan maamulayaasha, dhammaan saynisyahanada waa ido hoos yimaada hoggaaminta boqor waalan. ma aysan fahmin waxa ay samaynayeen, waxayna qaateen jadwal duugoobay. sidaas ayaa ka soo baxda taariikhda rasmiga ah. laakiin haddii madaxda ruushka aysan ahayn dadka doqoonnimada leh sida taariikhyahanadu u soo bandhigaan, waxaa la micno ah xaalad kale ayaa jirtay waayadii hore. qaybinta kale ee dawlad iyo siyaasadeed. halkan waxaa jira wax la qariyo. taariikhyahanadu mar walba waxay u caddeegaan siyaasiyiinta, waxayna dib u qoraan taariikhda iyadoo loo eegayo amarka awoodda jirta. mawduuc aad u xiiso badan aan sii wadno.